الله naxariistay waxa maanta isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho ku geeriyooday Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo kamid ahaa aqoon-yahanada dhaqanka iyo afka Soomaaliga udub dhexaadka u ahaa isla markaana waxa uu wasiir ka soo noqday dawladihii ku meel gaarka ee Soomaaliya howlihii uu caanka ku ahaa waxa kamid ahaa suugaanta horumarinta afka Soomaaliga cilmi baarista dhaqanka iyo hidaha Soomaaliyeed madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid ayaa labaduba tacsi u diray qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday iyo waliba ummadda Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh waxa uu ku tilmaamay Xuseen Sheekh Axmed Kadare inuu ahaa halgama taariikhda Soomaaliya baal dahaba ka galay goorna waxaan idin sii dayn doonaa oo aanu idin maqashiinaynaa waraysigii ugu dambeeyay ee Allahu naxariistay Kadare uu siiyay laanta af Soomaaliga ee BBC-da xilligaasi oo loo dabaaldegay 40 guuradii ka soo wareegtay qoridda afka Soomaaliga laakiin marka hore wariyahayaga magaalada Muqdisho Maxamed Ibrahim Macalimu ayaa warbixintan waxa uu ka diyaariyay taariikh nololeedkii Xuseen Sheekh Axmed Kadare الله naxariistay Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo ahaa suugaanyahan Afrikaan iyo qoraa Soomaaliyeed ayaa waxa uu ku dhashay tuulo u dhow degmada Cadle ee gobolka Shabeellaha Dhexe sanadku markuu 1934 waxa yaraantiisii uu ku soo barbaaray degmada Cadle iyo miyiga u dhow isaga oo ka soo jeeday qoys xoolo dhaqato ahaa Xuseen Sheekh Axmed Kadare ayaa waxa uu kamid ahaa laashimiintii caanka ku ahaa suugaanta shiribka markii uu aadka u daada yaraa Muqdisho markii uu yimid Kadare waxa uu ku beeray dhalinyaradii gumanimadoonka Soomaaliyeed sida uu isaguba sheegay 1952 ayuu ku fikiray inuu soo saaro far af Soomaali ku qoran fartaas oo markii dambe magaciisa qaadatay Kadariya waxaana ay ka koobnayd 24 xarfood anigu waxaan 1952 ayaan anigu farta alifay anoo isle markaa dhameysaba horaha laga qoro afka oo aan yani wixii dhacayo ay soo martay xaadadu anigu aan sugay markaa faraha markaa jiray xuruuftan laatiinka oo dadku waxa iskaga qorto carabiga oo dad wax ku qoro laakiin ninku qoraba asan wuxuu qoray akhri karin far Soomaali cusub oo markaas xamar labo ay maaragtay ka jirtay Ismaaniyada iyo xuruufta anigu aan sameeyay Ismaaniyadu waa ka horeysay waqtigaan anigu aan sameeyay iyada markaan bartay kadib aan isiri fartaan mid ka fiican raadi ayay xuruuftu waxay ahayd xuruuf aan lahayn formadan kursiga la yiraahdo gacanta lagu qorayo isku darmeys aan lahayn 1966 waxa Kadare uu gudoomiye ka noqday urur dhalinyaro ka jiray magaalada Muqdisho kaas oo la oran jiray golaha dhalinyarada Soomaaliyeed Somali Youth Council Kadare waxa uu ka soo shaqeeyay raadiyo Muqdisho isaga oo kamid ahaa dadka loo tixraaco af Soomaaliga Xuseen Sheekh Kadare waxa xubin firfircoon uu ka ahaa guddiga qoraalka afka Soomaaliga markii af Soomaaliga la qoray kadib Kadare 1974 waxa agaasimo uu ka noqday waaxda afka iyo akademiyada cilmiga fanka dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed Kadare waxa wasiirkii warfaafinta uu ka noqday dawladii Cali Mahdi ee aan taabagalin 1990 Xuseen Sheekh Axmed Hilowle Kadare waa muallif sameeyay riwaayado badan waxaana laga xusi karaa niman joogin ma jirayo sabool dagaal uma daabo iyo kuwa kale dhanka kale waxa uu ahaa qoraa waxaana laga xusuustaa buugiisii caanka ah ee Waasugay Warsame waxa uu alifay maansooyin badan waxaana uu kamid ahaa suugaanleydii ka qayb qaadatay silsiladii caanka noqotay ee Deeley ee ay ka qayb qaateen abwaanin badan oo Soomaaliyeed abwaanka weyn Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi oo tuhmayay Kadare inuu yahay nin afka iyo magac bixinta ku fiican ayaa gabay dheer oo tiriyay oo la yiraahdo dibadyaal waxa ku jiray halka dheer waqtigu dhigo dib baa looga sheekayn Kadare oo magac bixin Kadare waxa uu aad u yaqiinay naxwaha afka Soomaaliga waxaana uu ahaa nin koobay nolosha miyiga iyo tan magaalada 2 sano ka hor xaflad lagu qabtay magaalada Hargeysa oo loogu magac daray Hargeysa iyo habeenkii Kadare ayuu aad uga sheekeeyay taariikhda dhibaatada loo soo maray qoraalka afka Soomaaliga waxaana ugu dambeyntii uu ku soo qatimay shirib oo kolkaas naftiisa ka curiyay todoba aan isku tuhmaan falka wuxuu taabaha todoba waxyaalo todoba aan isku tuhmaan falka wuxuu taabaha xagga ba'da tobanki todoba tamaad inta tishaan ku tiishan waxyaalo la jira marka waxa isriyaan hadhow la dhigay dadku yaqaaniyo ku dhigay beenaadka todoba aan ka tuurayna intaan la tuhmo way ka taasan waxaan igi adaan timaha taabtana wixii tafnaa jiraan tiba adaan timaha taabtana
وحي تصناجر أنت بقى تمهيد من الملك حتى قلت لك من قادوا أكل حريق الدام طلاب تطورا بكيس تفاضل كيس طوى عائري تيدارة إلى التوصرون ثم جراء اسكت الشعب قف سديمي يسألك ميسي قف والبقى سوى سيدنا الله روح قضحية ما لي تأسيس عيا التالي الدام تناس استهمى عليه ثم جيش نمالي أنا اسكت لها وفاع مركو الانتاء تأسيس التروج مركز استهمى عليه وعائري تفيق لنا عبيت ما لا لمت الشماغ ترحيب لا لمت الشماغ ترحيب دي هاد ما الفلوس دي ما قفل الترحيل على دقنا هاي عمري وانا ما لين نود دي ما الفلوس محمد إبراهيم معلمو BBC مقدشو xuseen sheekh axmed kadare allah u naxariistay haddaba waraysigii ugu dambeeyey ee uu siiyey laantan af soomaaliga ee BBC-da wuxuu ahaa bishii Oktoobar sanadkii 2012 markaasi oo loo dabaaldegayay sanad guuradii 40aad ee qoridii afka Soomaaliga waxaan kula kulmay magaalada tan London oo uu ka mid ahaa dadkii ka qayb galayay xafladaasi isaga iyo Abwaan Hadraawi iyo Macallin Saciid Saalax Axmed barnaamij gaar ah oo markaasi aan u qabanay ayaanu ku weydiinay xuseen xuska afka Soomaaliga waxaan u malaynayaa kulanka inta loo yimid wuxuu ahaa afartan guuradii qoraalka af Soomaaliga dhaqanka oo kaliya xaajadu ma ahayn waxaa la xusayay qoraalka af Soomaaliga ayaamaha dhan taasan ka hadlayn marka anigu taasaan meesha u imid qoladii afka qortay maadaama aan kamid ahay hadii la yiri meesha ka soo qayb gal xamar inaan ka imaado inta imaado taas ay ugu qasabtay meesha muraad aan kala hay ma jirin oo kale dhaqanka Soomaalidana waxaaba luqaduba waa ka mid oo waa rukn weyn oo maaragtay Soomaalida dhaqankeeda maaragtay uu ku taagan yahay Soomaalina waxaa isku xiray dhaqanka guud oo la wada yaqaan ayaa isku xiray diinta midaysan iyo luqada midaysan iyo hadii alla idmahayo afkaarta dadka maaragtay ku beeran oo midaysan ayaa Soomaali isku xiray iyada ayaana hadii alla idmahayo shansanayna haddana kulankaanu waa najaxay oo waxaa looga hadlay afar guuridina waa looga hadlay suugaanna waa looga hadlay waxaa mawduucyo tiro badan maaragtay laga hadlay barnaamijkaasi oo ka dhacay bariga magaalada tan London ayaa markaasi xuseen sheekh axmed kadare waxa kale oo aanu weydiinay 40 sano kadib xaaladda afka Soomaaliga iyo halka maanta uu marayo af Soomaaligu hadda meel tacbaan oo maraya maxaa yeelay dawladii ka burburtay waxaana la rajaynayaa hadii dawladdu hagaagto in asaguna tooso anigu maadaama qoraalkiisi hadda 40 jirsaday intii wixii aan ku dadaalay jiray oo dhaqan galay oo Soomaalida maaragtay hadii marka dhaqan galay oo 40 jirsaday ayaan anigu si gaar ahaan u faystaynayaa oo afka ku saabsan qoraalkiisa ragga igala qayb qaatana waa raggii aan arintaas isla hirgelinay ayay ahaayeen marka waxaan u malaynayaa guulo la gaaro oo qoraalka afka ka weyn waxaa ka jira xurriyadii laga xuroobo isticmaalka ka jirta haddana dagaaladii sokeeye ay dib noogu celiyeen marka rajaduna waa fiican tahay dawlad cusubna waa dhalatay afkina waa 40 jirsaday akhyaarta meeshaan fadhidana xoogaa da'dooda yara hore u dhacda maahane farxadoodu cirkaasay maraysaa laakiin welwel waxay ka qabaan da'dan balaayada oo maaragtay badatay naxariis janna ee bahasiye wuxuu ahaa Dr. Xuseen Sheekh Axmed Kadare oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho